بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعن ترسيد حسين وحان كوكو سو دوينيا حرونتا بافو waxaan haysanaa report laga diyaariyay laba shirkadood oo kala duwan shirkadda hore waxaa loo yaqaanaa Socdaal Company shirkadda labaadna waa Xarago Company reportkan la diyaariyay waxaa loo yaqaanaa Profit and Loss amba Income Statement waa warbixinta lagu ogaanayo shirkadda wixii faa'iiday amba ay qasaartay haddii aan ku hormaro company-gan Socdaal Company waxaa jiro meelo ay ka maqan yihiin lacago sales return allowance gross profit iyo net income lacagaha ka maqan waa inaan raadinaa oo aan soo xisaabinaa kadibna meesha aan kusoo buuxinaa markii aan usoo gudubno Xarago Company sales review-ga iyo cost of goods sold-ka lacagihii ayaa ka maqan ayaana waa inaan si gaar u raadinaa meesha aan kusoo qornaa lacagaha si reportkan u noqdo labada company report dhammaystiran waxaan rabaa inaan kusoo xasuusiyo reportkan profit and loss-ka qaabka loo diyaariyo anoo hubo inaan si fiican u taqaanid reportkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta sare waxaa lagu soo qoraa wixii dakhliga shirkadda soo galo qaybta hoosena waxaa lagu diyaariyaa expense-yadii amba dakhliga qarashaadka shirkadda ee gashay haddii dakhliga uu ka badan yahay wixii qarashaad la galay meeshaas faa'iido ayaa imaanayso haddii dakhliga uu ka yar yahay wixii qarashaad la galana meeshaas waxaa imaanaya khasaaro xaalada waxaa jira labadooda isla ekaa karaan oo loo yaqaano break even amba brejo laakiin xaaladahaas way iska adag tahay in la arko amba waxba la faa'iida amba waxba la khasaaraa waxaan kusoo laabanaynaa kambaniyada meesha aan uga shaqey lahay reportkan profit and loss markii la diyaarinayo markii laga tago inta yaraan ku soo sharaxay waxaa jira qaacidooyin fara badan oo meesha ku dhex diyaarsan haddii aad taqaanid waa okay haddaadan aqoonin hadda ayaa baranaysaa waxaan ka bilaabayaa shirkadda ugu horeyso oo ah Socdaal Company iibka ay sameeyeen waa 9,000 badeecooyinka lagu soo celiyay lama hayo net sales-ka amba iibka markii badeecooyinka lagu soo celiyay laga jaro waxay gaaraysaa 81,000 waxaan laga rabaa badeecooyinka lagu soo celiyay qiimahan inaan raadino sida caadiga net sales-ka waxaa lagu helaa iibkii la sameeyay sales-ka oo laga jaray wixii la isku soo celiyay oo ah sales return allowance haddii marka sales return allowance-ga la weysan yahay waa in formuladaas dib habeen lagu sameeyaa sales return allowance amba badeecada la soo celiyay waxaa lagu helayaa iibka la sameeyaa waxaa laga jarayaa net sales-ka marka waxaan sameynaynaa kala goyn caadi ah waxaan leenahay sales-keena ayaan waxaan ka jaraynaa net sales-ka si meeshaas ay u soo baxdo wixii badeeco lagu soo celiyay shirkadda oo loo yaqaan sales return allowance waxayna gaaraysaa $9,000 haddii aad 9,000 kaga jirtid $9,000 waxay noqonaysaa 81,000 figurka labaad oo maqan ayaa waxay tahay gross profit waa faa'iidada buuran si caadi ah loo xisaabiyaa qof walbana uu yaqaanaa gross profit waxaa lagu helayaa net sales-ka oo laga jaray cost of goods sold-ka net sales-ka waa iibkii la sameeyay markii wixii la isku soo celiyay laga jaray cost of goods sold-kana waa badeecadii la iibiyay lafaha ay ku fadhiday labadaas markii aan kala goyno waxaa soo baxayo in shirkaddan faa'iidada buuran amba intii qarashaadka caadiga aan laga jarin in ay gaarayso 25,000 shirkaddan qarashaad waxay gashay ilaa 15,000 faa'iidada ayaa la rabaa in la soo xisaabiyo faa'iidada waxaa lagu helayaa gross profit-ka oo laga jaray qarashaadkii caadiga ahaa ee la galay marka 25,000 ayaa waxaan ka goynaynaa 15,000 meeshaas waxaa soo baxaysa $10,000 in company-gan Socdaal Company uu faa'iiday haddii aan soo wareego Xarago Company waxaa maqan iibkii laakiin waxaa lahayaa badeecadii la soo celiyay iyo net sales-kii waxaan rabaa inaan ku soo xasuusiyo in net sales-ka mar walba lagu helo sales-ka oo laga jaray sales return allowance haddii sales-ka aan lahaynin waxay noqonaysaa in net sales-ka aan u geyno sales return allowance labadan ayaan isku geynaynaa si aan u helno sales review-ga equal ayaan leenahay net sales-ka ayaan waxaan u geynaynaa sales return allowance inta ayaan taabanaynaa waxa ay noqonaysaa $100,000 marka waxaan isku geynay net sales-kii iyo waliba sales return allowance waxaan laga rabaa inaan xisaabino cost of goods sold-ka wuxuu noqonayaa badeecadan company-gan Xarago uu iibiyay waxa ay ugu fadhiday waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo in markii la xisaabinayo gross profit-ka lagu helayo net sales-ka oo laga jaray cost of goods sold-ka marka 38,000 waxay ku imaaday net sales-ka oo ah 9,500 in laga gooyo cost of goods sold-ka lama hayo marka waxay noqonaysaa inaan qaacidada dib habeen aan ku sameyno cost of goods sold-ka waxaan ku helaynaa net sales-ka oo ah 9,500 inaan ka goyno gross profit-ka si meeshaas ooga soo baxo cost of goods sold-ka marka equal ayaan taabanayaa net sales-ka ayaan waxaan ka goynayaa gross profit-ka meeshaas waxaa soo baxayo $57,000 inta kale si caadi ay soo baxsan yihiin operating-ka waa 3,000 net income-ka wuxuu ku imaanayaa
in gross profitka laga gooyo operatinga waana 15,000 marka qaabkaasay noqonaysaa qaabka aad income statement kala dhiman amba nambarada qaar ay maqan yihiin markii lagu diro lagu dhaw soo raadi in aad isticmaashid formulooyinkan haddaan isticmaalna si jawaab sax ay kugu soo baxaan ما شاء الله تعالى انت سان ku hakinayna xarunta baafo waa xarun ku diyaarsay kursooyin aad far badan waxaan ugu maad kartaa xarunteena waxay ku taala suuq bakara masaajka Abu Hurayra agtiisa amba qaab online kursooyin ku qaadi kartaa nambarka shaashada hortaada ka muuqda ayaa naga la soo xiriiraysaa